Maalin wanaagsan oo wacan dhegaystayaal waa barnaamijkeennii ogaal ma runbaa in calooshood u shaqaystayaal shisheeye ay ka dagaalamayaan gudaha dalka Itoobiya. Ciidamada jabhadda Tigreega ee dagaalka kula jira xukuumadda Itoobiya ee uu ra-iisul wasaaraha ka yahay Abiy Axmed ayaa Jimcihii ku hanjabay in ay ugaarsan doonaan ajaanibta ay sheegeen in ay taageerayaan dowladda Itoobiya oo ah calooshood u shaqaystayaal dagaal oo ay weliba ku jiraan khabiiro sare ee dhanka farsamada dagaalka casriga ah. Afhayeenka jabhadda TPLF Getachew Reda ayaa sheegay in ajaanibtu ay ka soo jeedaan dalalka Turkiga, Shiinaha, Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. Laakiin ilaa hadda afhayeenka dowladda dalka Itoobiya Legesse Tulu lagama hayo wax jawaab ah oo ku saabsan eedeynta TPLF-ta. Sidoo kale ilaa hadda ma jiraan warar si madax bannaan loo xaqiijiyey oo sheegaya in dhinacyada dagaalamaya ay adeegsanayaan calooshood u shaqaystayaal dagaal. Dagaalkan ayaa waxa uu socdaa muddo sannad ah, welina si dhab ah looguma kala adkaanin, inkastoo qolo waliba sheeganayso inay guul ka soo hoyeen goobihii la isku fara saaray. Dagaalkan oo ay ku dhinteen kumanaan qof, in ka badan milyan qofna ay kaga qaxeen guryahoodii, xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay bishan kadib markii xoogagga kacdoonka ah ee kasoo jeeda gobolka waqooyi ee Tigreega ah iyo xulafadooda OLF-ta ay guulo dhuleed ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyey, waxayna ku hanjabayeen inay socod ku tegi doonaan caasimadda dalka Itoobiya, magaalada Addis Ababa. Dowladdu waxay sheegtay in la buunbuuniyey jabhadaha ku kacsan, isla markaasna ay dib u riixeen oo ay gaarsiiyeen jab weyn. Xukuumadda Itoobiya waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah November 2, taas oo saamaxaysa in tuhmanayaasha la sii hayo ilaa inta xaaladda degdegga ah lagu jiro, in guriguri dadka loo baari karo amar la'aan, loona baahan yahay in muwaadiniintu qaataan kaararka aqoonsiga heer federaal iyo heer gobol. Kaararkan ayaa noqon kara mararka qaar calaamad muujinaysa asalka qowmiyadda uu qofku ka soo jeedo. Dhinacyada dagaalamaya waa dowladda Itoobiya iyo ciidamada jabhadda Tigreega ayaa ilaa hadda ku gacan sayray baaqyada Mareykanka, Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ee xabad joojinta. Labada dhinacba waxay soo gudbinayaan shuruudo adag oo midba midka kale uu diidayo. In ka badan 400,000 oo qof ayaa macluul ay soo food saartay gobolka Tigreega. Qaramada Midoobay ayaa ka digaysa in ay jirto masiibo bini'aadanimo oo ku soo fool leh dalkaasi. Ma jiro gargaar bini'aadanimo oo ay Qaramada Midoobay soo gaarsiisay dhulkan dagaaladu saameeyeen ee qowmiyadaha Amxaarada iyo Tigreega. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay arrintaasi Khamiistii, iyadoo intaa ku dartay in ilaa 364 baabuur oo wada gargaar ay ku sugan yihiin gobollada la deriska ah halka ay colaaddu ka taagan tahay, iyadoo laga sugayo oggolaanshaha mas'uuliyiinta dowladda si loo gaarsiiyo dadka tabaalaysan. Qiyaastii 100 baabuur oo xamuul ah maalintii waa inay galaan gobolka Tigray si ay u daboolaan baahiyaha bini'aadanimo ee muhiimka ah. UN-ka ayaa yiri ku dhowaad 80% daawada lagama maarmaanka ah ayaan hadda laga helin Tigray, iyadoo inta badan xarumaha caafimaadku
aysan wax shaqo ah ka soconin. dhanka kale waxaa af ka furtay Tedros Ghebreyesus oo ah madaxa WHO, hay-adda caafimaadka adduunka, oo ah nin ka soo jeeda gobolkaasi Tigray, kaasoo ku eedeeyey in dowladda Ethiopia ay xayirtay gargaarkii la gaarsiin jiray ama gargaarkii la gaarsiin lahaa gobolka Tigray, walow aysan dowladdu ka jawaabin eedeyntiisa ilaa hadda. waxaa la filayaa in madaxda gobolka qaarkood, waa kuwa IGAD in ay ku kulmaan Kampala, Uganda 15 bisha November si ay uga wada hadlaan xaaladda Ethiopia iyo midda Suudaan. lama oga inay kasoo qaybgeli doonaan Abiy Ahmed iyo Siyaasi Afwerki ega Eritrea shirkaasi, iyadoo aan la filayn wax dhaafsiisan warmutiyeedkii caadiga ahaa ee kasoo bixi jiray shirarka IGAD iyo kuwa Afrika inay kasoo baxaan halkaas. ilaa hadda lama saadaalin karo halka ay ku dhammaan doonto colaadda sokeeye ee Ethiopia ka dilaacday iyo cidda ku adkaan doonta dagaalkaas. dowladda deegaanka Soomaalida ayaa la arkayaa in aad looga taageersan yahay Abiy Ahmed, iyadoo halkaas lagu qabtay isu soo baxyo ballaaran oo lagu taageerayo dagaalka ay dowladdu kula jirto ee dhanka ka ah TPLF-ta. walow ay jiraan kuwo quluubta ka taageersan gulufka dagaalka ay horkacaysa TPLF-tu oo ay weli isqarinayaan, nasiib darro inta badan siyaasiyiinta deegaanka Soomaalida ee Ethiopia waa kuwo had iyo jeer u diyaarsan in ay hoos joogaan kana hoos shaqeeyaan hadba cidda Ethiopia qabsataa, iyadoo aan ognahay in deegaanka Soomaalidu yahay mid ballaaran oo istiraatiiji ah oo leh kheyraad fara badan, ayna tahay in dadkiisu ka muuqdaan hoggaanka iyo isbeddelada Ethiopia.